waxaynu ka hadlaynaa waxyaabaha qofka muslimka lagama maarmaan ay tahay bishan inuu aqoon u yeesho. waxyaabahaasi waa waxyaabaha soonta afuriya qofka sooman. waxaa jira waxay afarta madhabood iyo culimmadu isku waafaqsan yihiin inay soonka jebiyaan oo wax dooda aanay ka jirin. waxaas ay culimmadu isku waafaqsan yihiin baynu sheegaynaa, waana waxa ugu waaweyn. wixii kale laysku khilaafsan yahayna waxaynu ka sheegaynaa sida raajixa ah. qofka sooman waxaa la rabaa soonkiisu inaanu noqon soon gaajo iyo haraad keliya u kordhiya. habeenkiina qiyaamkiisa iyo salaatuleylkiisu waa inaanu noqon mid u kordhiya daal iyo soo jeed iyo taagni keliya. waa in nabigu wuxuu sal allahu alayhi wasallam rubba saa'im, badanaa mid sooman laysa lahu aanan u sugnayn oo lahayn soonkiisa ila aljuucu waalcatash. soontiisa wuxuu ka kororsanayaa waa gaajo uu gaajaysan yahay iyo haraad u haraadan yahay oo cuntadii uu ka qatan yahay. waayo waa qof xasanaadkii oo dhan wixii uu ka heli lahaa wuu iska xumaynaya. rubba qaa'imin, badanaa mid habeenkii salaad taraawiixa u taagan laysa lahu ila asahru watacab, oo aanu lahayn soo jeed iyo daal mooye wax uga kordhaya aanay jirin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa kii niyadiisa iyo ajarka ilaahay uu ka xisaabsanayo aanay si saxa ahayn. waa inaad ogaataa cuntada iyo cabitaanka iyo wax kastoo wax afuriya ilaaha weyne waaxidkaa dartii baad uga tagtay. ilaahay baa wuxuu leeyahay xadiis alqudsi, yatruku طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli. qofkan sooman cunadiisii, cabitaankiisii, xaaskiisii, naftiisu waxay rabtay oo uu ku afurin kari lahaa aniga dartaybu uga tegay. anaa soonka iska leh, addoonkayga anigaa ka abaalmarinay. jannada albaabbaa ku yaalla 8 albaabee jannada ka mid a. albaabkaasi waxaa loogu talagalay aakhiro ilaahay inuu ku casumo oo ku soo dhoweeyo, ku soo riyeeyo dadkii dunida saa'imiinta ahaa ee soomi jiray. markay galaan biyo qabow oo jannaatu cadnin laga keenay baa laga waraabinayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. dib oo dambaysana u haraadi maayaan. ilaahay kuwa ha inagu daro subxaanahu wa tacaala. soonta marka ilaalinta xoog leh u baahan tahay uu qofku ilaashado. waxyaabaha mufatiraadka ah ee laysku waafaqsan yahay ee soonka jebiya waxaa ugu horeeya alaklu washurbu, cuntada iyo cabitaanka. qofku inuu kas wax u cuno, kasna wax u cabo. habeenkii rasuulka la guuraysiiyey calayhi salaatu wasalaam, samada loo dhigay, wuxuu arkay naartii baa la tusay. dad buu arkay qowlaladaa la dilaaciyey oo dhiig iyo xinjiro ay saa uga qubanayaan. dad buu arkay rasuulku sal allahu calayhi wasalam boqmaha lugaha inta laga dalooliyey saa loo soo lulay, afkanoo dhiiguu ka qubanay. markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey waa maxay jibriil oo dadka caynkan ah, waa dadka iyadoo aan afuro la gaarin oo soontii ay tahay afuro oo wax cuna buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waa qof soomanaa laakiin qoraxdii oo dhicin buu wax iska cunay si kas ah. maxaad u malaynaysaa kii aan soomin cadaabka la markinaya? marka maxaad u malaynaysaa? iyo inkaarta ku dhacaysa iyo cadhada ilaahay ee ku dhacaysa iyo kan u soo shaqo tegay ee xaaraanta u karinaya ama siinaya, maxaad u malaynaysaa? ilaahay wuxuu dadka u baneeyey habeenkii oo dhan in wax la cuno oo wax la cabo ilaa inta fajarku ka dhalanayo. fajarku hadduu dhasho ilaa cadceedu intay ka dhacayso waxna lama cuni karo, waxna lama cabbi karo. qofkii muslimka waa ka xaaraan cunto iyo cabis. akliga iyo cunistaasi oo markuu kas wax u cuno qofku hadduusu halmaansan yahay oo wax cabo oo wax cuno, soontiisii ka waran, soontiisii waa saxiix oo waxba soontiisi u dhimi mayso. man akala aw shariba, qofkii wax cuna oo wax cabba isagoo halmaansan maalin ramadaan fa innamaa ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. laakiin qofka arkaya la gudboon waa inuu yidhaahdaa war miyaadan soomanayn? kii isagu soontu u bannaan afuritaanku u bannaanaa ee macduurka ahaa laftiisu waa inaanu dadka hortooda waxna ku cunin waxna ku caabin, si aan mala xunna loogu malaynin. war ninkan weynaan xishoonayna wax cunaya aan loo odhan. mar haddii ilaahay u banneeyo xanuunsanayo meel asturan dadka hortooda yaanu waxba ku cunin. laakiin hadduu ilaawo man nasiya wa huwa saa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu, soonkiisa ha dhammaystirto. fa innamaa atcamahu allahu wa saqaah, ilaahay baa quudiyo waraabiyey. qodobka labaad ee laisku waafaqsan yahay soonka jebiya
وقلمو إنه قفت صنيعيه مالين رمضان إسقوا صوما قلمو ذا سيام حلالها النقط والعياذ بالله أما حرام هالنقطة هدو صنيعيه وحبها وافر وحقوها وين أفرت من هود ويسقوا فرسين دنبي وين وكبيرة أبو قلي صوتي سمالتها واجبتي إنه سوق اللي لقربا إنه أفهيستا لقربا إنه كفار قد سمينا ولقربا لحنا العشاء إنه الصومال لقربا وحريرة وما لنا أن أفرين وحال لقربا لحنا كأودي ولحنا المسكين إنه قوديه وحكا سيا لقربا رسولك عليه الصلاة والسلام من بأويني تماها يسكر فيا وجهك يسكر باحيا قيلينيا ورمحاك قدعي وأهلك سمي وما أهلكك ورمحاك هلاقي وقعت على امرأتي في رمضان سلان تيبان مالين رمضان كنت رحمة يستيو أن نتجي نبي صلى الله عليه وسلم كفارة قد بفحي كويس فارقود كي مركز القور لحريا كمل المانتي إنه مسؤول جليسو لكن وإن لو بنوضح حلول الصوم يا مالك قرأ هتو كسوا فرو وسوي لنا يا صوت أنت كلا وكلكم بنيسا هدو أولي ويلحن المسكين بوقودنا يا قدر كسر هذا اللي سوا فقسية صوت تشبيه وإنزال المليه باختيار قفك إنه بيه شهوة إسقى كانوا سي اختيار كيسا أما قعنتي سه إسقى كانوا وحيابها قعنت الله إسقى كانوا قصمي أما وحنا ضاوضي ودرين كيسا كعيي هكانوا هدو قفك ساسا ميو بيه إسقى كانوا صوتي سوا شويسا maalinta uu soo qalaynaya uu afhaysanaya allu toobad keenaya laakiin kafaara gud lagu ma laha laakiin xanuun baa laga qaada sideedaba biyaha oo gacanta la isaga keeno cudur khatar laga qaada oo qofku waxa weeye khatar cadiim ay ku keenaysaayo waxa weeye inuu iska ilaaliyo cidii inuu guursado hadaan qofku reer lahayna isagu yushalaagin waxa weeyaan hasoo soonka dawow ah النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث القدس قال له ولينا قفت عنتديسي شهوديسي عبيتانكيسي إلهي قرتي بوقتك سبحانه وتعالى قضبك أفراد هدي لكن قفك رياضة إساقوا صوما بوصي حبي وإسكو جنوبا يوحو طاصي إساقوا ملديسي عيلة جنابة بوإسكو أركي صونتي سوا صحيح لأنه واحد يساقوا إسكامكين كردونا كتشر اسموغين وقميسانا يا واستنجونا يا هوشي سيبو قبسانا يا صونتي سينا وعدما يستيرانا يا haddii intuu riyoodo isagu hawla ku jira ku riyoodo hawshii gogasha ku jira oo hawla dhamaysta ku riyoodo laakiin markuu soo kaco waxba uu arki waayana iyadana waxba lama jira qodobka afraad la isku waafaqsan yahay waa xaydka iyo nifaaska haddii dumarkii iyagoo sooman xayd ku dhaco ama gabadhii ay umusho iyadoo sooman soonkeedaasi waajibtay way soo qalaynaysaa وأتو النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم كبرنا ميانا يا حين مدى مركا يحيضه صلاتنا أن تكن صلنا أن سوين النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إلى قضب كشناري قدام بيليسكوا فقصية هاي التقيؤ عمدا قفل إنه كس إسكا من تجيو أما من تك إسكا كيانو أما أفكا فرتها إسكا كليو أما عاليتها إسكا كليو أما سيئون سبب إسكا كيانو haddii uu isagu mantaga iska keeno rabadaan maalin ay tahay soontiisi waa jabtay uuna soo qalaynayaa inta maalinta ka dhimanna waxna cuni maayo uu afhaysanaya waana lagu leeyahay soontaas ilaahay ha u toobad keeno haddii laakiin mantagu soo dhaafo xanuun baa qabtay wuu yaqyaqsooday waxba maarag ku yimid waka waxay fuqahaadu isweydiiyaan hadduu iska badiyo ka wara cuntada iyo cabitaanka dad baa ilaahay isa soo xidhaan cuntada joojin وبيه يعنتدي وضع ماله كل نفسه مركو واهية علماء قال مركو وحيلين كاسي ده إنه شبصه ويساق أو صبابه مجوشية ده باشي مجوشي واهي مركو ده فور رصداء ما عين كان وصور دافع باشي سوما قارنا وحيلين ما رضي صور دافع وحبيان الله راني رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي قفك من تقو صوت شيره وصور دافع من تقمشى دولي سكوكما سمي سمالو ترى هذا منطق صوتشيرو فليس عليه قضاء قال له مالها ومن استقاء عمدا فليقضي قفك كسي سيوم دتشيا هسوق الله النبي عليه الصلاه والسلام شنطه قضاء مفطرات كلا يسوا فقسيه هي شريعه اي شيختي waxaa jira waxyaabo mufatiraada oo iyagu wixii xitaa cuntada cabitaanka booskeeda gali kara way soo galaysaa afuritaanka oo faleebada macaanka oo la qaatay wixii kale sanka hadii wax la isaga dhibciyo dhagaa hadii wax la isaga dhibciyo indhaha hadii wax la isaga dhibciyo soonti ma jebinaysaa ala alqawl raajih soonti ma jebinayso iyaduna soonti ma jebinayso waxyaabaha la isku khilaafsan waxa kamid ah indha kuusha hadduu qofku indha kuusho soonti ma ka jebinaysaa
jawaabtu waa maya. hadduu dhiig iska qaado ma ka jebinaysaa soontii shaybaar ka tago? waa maya. hadduu irbad isku dhufto sinta isaga dhufto ama gacanta xididka iska siiyo soonkii ma ka jebinaysaa? waa maya. waxaa ka mid a haddii qofku uu maaragtay ilig iska saaro soontii ma ka jebinaysaa? waxay leeyihiin waxaa wanaagsan inuu habeenkii u dibdhigto. ilkaha la buuxinaya iyo la gelinayo, waxbaa afka lagaga shubaya, tubooyin baa la gelinayaa. in waxaa ku fakadaan halisteeday keeni kartaa, qofku inuu iska ilaaliyaa fiican. bukhaaqay ka hadlaan qofka xiiqda qaba ama saboorka qaba ma isticmaali karaa bahashan afka lagu buufiye naqaska laga sii daynaya? culimada mucaasiriinta waxay leeyihiin cunto iyo cabitaan micnahooda ma laha. qofkii isagoo sooman hadduu jeefka ku sito ay naqasku qabto waa isaga buufin karaa, wax dhibaato ama la leeyihiin culimadu. soontiis xuma noqonayso. waxyaabaha aan soonka jebinaynin waxaa ka mid a haddii al-idma ay ka hadlaan dad baa wadna xanuun qaba ama xanuunna bay qabaan, marka dawo baa jirta aan la laqin laakiin carabka hoostiisa lagu qabto, kiniinna lagu qabtaa jira yidhaahdeen. soonkii ma jebinaysaa? waa la isku khilaafsan yahay. culimada qaarna waxay leeyihiin waa jebinaysaa, qaarna waxay leeyihiin ma jebinayso. waxyaabahaas waa wixii dadka keliyaha loo maydhayo oo keliya qofkii laga hayo hadduu sooman yahay soonkii ma ka jebinaysaa? jawaabtu wahaa way jebinaysaa. qofka dhiig baa laga shubayaa, waxbaa lagu shubayaa, kale dawaa la siinayaa. xijaamada iyo toobinku soonka ma jebinaysaa? hadduu qofku dhiig u shubo qof kale soonkii ma jebinaysaa? waa masale fuqahadu isku khilaafsan yihiin. qaarna ay leeyihin waa jebinaysaa. shaaficiyadoo kale waxay leeyihin ma jebinayso haddii aan la idmaayo qofkaasi soonkiisa wax dacfi ay taaldaro aanay ku keenaynin, ma jebinayo soonkii bay leeyihiin. ilahaasiba waxay fuqahada iyo culimmadu ay ka hadlaan. qofku marka inuu soontiisa ilaashado, sida inaadan ramadaan dambe soomayn oo kale soonta u ilaasho, sida inaadan ramadaan dambe qur-aan akhrin doonin oo kale qur-aanka u akhriso, sida inaadan ramadaan dambe taraawiix tukan doonin oo kale taraawiixda u tuko, sida inaadan ramadaan dambe gaarayn oo kale afkaaga u ilaasho oo dadka afka ka ilaasho oo qalbiga ka ilaasho oo dadku afkaaga iyo adinkaaga ha ka nabadgaleen. is-ilaali. jirkaaga xubin walba oo ka mida waa inay soontaan. indhahaagu waa inay soomaan oo dhegahaagu soomaan oo afkaagu soomaan oo gacmahaagu soomaan oo lugahaagu soomaan. meel xille inaan lagugu arag. baryada ilaahay inaan aad u badino baynu isu dardaarmayna. waqtiga afurida la afurayo oo afurka aan lagu talax tegin oo qofku hadduu waxay afka ku dhufto ilaahay uu baryo, waa waqtiga ducadu mustajaabada ay tahay. suxuurta ilaahay inaad barido, sujuudda ilaahay ku barido, inaad subixii ilaahay barido, xilli kastood awooddo alla inaad barido.